ayaa ka khayr badan buu yidhi xooggiinuuna igu gargaara. waxaan uga jeedaa waa adduun buu gacanta ugu jiray laakiin uu aakhiro ku raadacaynayo. waxaan ku soo koobayaa marka saxaabadii dad shaqaysta, dad xoolale, dad baac mushtara, dad farsamo yaqaana, dad aqoon-yahana, wax walba waa lahaayeen. laakiin adduunka wuxuu ugu muuqday dariiq aakhiro loo maro. taa macnaheedu waxa weeyaan adduunka kasbashadiisa dariiq xaaraana umay mari jirin, oo marka hore si ay xoola u helaan waddo ilaahay cisyaankiisa umay mari, waayo waxay adduunka u raadinayaanba inay ilaahay ugu dhowaadaan buu ahaa. haddaad adduunka marka horeba u marto dariiqaad ilaahay kaga fogaanayso dee ma aha kii la rabay. waa midda labaade waxay ahaayeen adduunka iyo aakhiradu dad ay isugu jirto. qoladaa foqorada aan waxba haysanin markuu nebigu tiltilmaamayey muxuu ku yidhi? tasbiix iyo wardi iyo tahliil iyo intaa markii loo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar sameeya, dadka samaha fara xumaha ka reeba. markaasa haddana waxaa loo sheegay qofka muslimka oo aad caawiso ka faraskiisa aad wax waliba inay sadaqatay. markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi wa fii budci axadikum sadaqa, haweentiisa ninku galmada uu u galmoodaba sadaqa xataa buu nebigu yidhi. u fiirso aragtida adduunka ay ka qaba markaa muslim. aragtida uu adduunka ka qabaa waxa weeyaan waxyaabaha adduunye jacayl xaggeeda ugu xiga waxaa ka mid a xidhiidhka ninka iyo gabadha dhex mara. nebigu cayaaraha uu yidhi cayaara kuma jiraan bay ka mid tahay cayaarta ninka iyo haweenaydiisa dhex mara, iyo cayaarta ninka iyo faraskiisa uu ku dagaalgalaya dhex mara. cayaaraha kuma jiraan baa la yidhi, iyagu laqwi ma aha, waa cayaaro gaar ah oo ajar lagu helo hadduu dariiqa la maraya uu yahay maxay kii islaamku uu faray. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay waa fii budci axadikum sadaqa, midkiin inuu haweentiisa u galmoodo ama uu la cayaaro ayaa sadaqa ku jirtaa baa la leeyahy. taa macnaheed waxa weeyaan adduun iyo aakhira meeshan ma kala jirto, ee adduunku waa dariiqa aakhiro loo maro. dadka badh baa xadiis ka daciif ama mawduuca soo arooriya addunya masracat alaakhira ma jiro, laakiin macno ahaan waa sax. nebi maxamed weedhuu yidhi oo ka sugan maaha calayhi salaatu wasalaam, laakiin macnaha ay xambaarsan tahay waa macno saxiixa. oo haddaa sawtan culammadu markay wax wacdinayso adduunyada ka taga tidhaahdee adduunyada lacaya, adduunyada wax laga sheego waa geerma. waxay dhahdaan culammadu xaqiiqa waxaa in adduunka caydiisa qur-aanka ku soo aroortay. nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay oo lacna ay soo aroortay. dadka in badan lagula dardaarmay inay kalgacalkeeda ka fogaadaan, laakiin waa goorma? waxay culammadu yidhahdaan waa laba majaal markay taagantay. waa marka ay adduunku iyo kalgacalkeeda iyo la xidhiidhkeedu uu xaajis ka noqdo, wax kaa celinaya xaajisan bayna annaasi wa bayna allahi walyowmi alaakhir. markuu yahay maalku iyo adduunku mid ku dhaafinaya inaad ilaahay rumayso ama qiyaamaha inaad derderto maalinta aakhiro waxba heli weydo, marka waa madmuum. mar labaadna waa madmuum hadduu xoolaha iyo xoogsigeeda iyo ka shaqaynteedu jihaadka xaqa uu kaa reebayo, iyana waa madmuum. waxay yidhaahdaan qur'aanka labada jeer ee adduunka caydiisa uu ku soo aroortay waa labada tan. bal aan nusuus badan oo qur'aan akhriyo, mar qur'aana aan wada tilmaamo ereygaan uga jeedo. ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka wafarixuu biاlxayaaةi الdunya wma alxayaaةu الdunya fi اlآakhiraةi ila mataac in اladina laa yarjuna liqاءana waraduu biاlxayaaةi الdunya waاطma'anuu biha wاladina hm can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum الnaaru bima kanuu yaksibuun. waxaa kaloo alla leeyahy subxaanaه wa tacaala wawaylu lilkaafiriina min cadaabi shadiid aladiina yastaxibuuna alxayaaةa الdunya clى اlآakhirة wayasuduuna can sabiili اllah wayabguunaha ciwaja ulaa'ika fii ضalaali baciid. waxaa alle subxaanaه wa tacaala u leeyahy walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim غadb min allahi walahm cadaab cadiim dalika biأnahum istaxabu alxayaaةa الdunya clى اlآakhirة وأن allaha laa yahdi اlqowmi اlkaafiriin. aayaadka aan soo sheegay iyo amhaalkoodii waxay soo arooreen xubu dunyaa ama adduunka kalgacalkiisa oo qofka ka kaxaynaya ilaahay rumayntiisa ama se maalinta aakhire uu xoogsigeeda. markaasi adduunku waa malcuun. adduunku hadduu maalinta aakhire ku ilowsiinayo ama se aliimaanu biاllahi uu kaa kaxaynaya waa malcuun.
وحكلوا ملعون يهي هدي جهادك حقا وكاريبيو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نصوص تاسي قرآن كي وحي شيغيسا أولو الطول جهاد كبحسنية أما الدد للي حوله إني عرورتي إني يوحا هانتها ستانية تجارة يوحا ديك فضل دقو جهاد في سبيل الله إنك فضل دقو تنبار راجحة معنى هيدو حويان لبا شيء أدون كوا ملعون أما هو مذموم أما الشريعة وي عيبيسي وهدي حول دقتك إيا وحا كان يا آخره إيا ألك ويدارين إيان أما السه حول دقتك إيا وحا كان جهاد في سبيل الله كاكا حين إيان لبدا قور والله سيء قفك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وإيثار عن الآخرة فإن الجحيم هي المأوى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم آيات كان آخرين يوردمي وحين لنا هاي وأدونك غفله هرسيدي هرسيدي إن آخرة غافل كالنغطه وأرنان لهي أقبلين مركها مؤمن يكافر منا لقى أقبل مايو هذا أدونك مؤمن كو غافل كدقايو أما قال كو غافل كدقايو الله وضع منا لا أقبل مايو أما aragtida noranaysa adduunka iyo aakhiro waa laba saf oo iska soo horjeedo oo haddaad adduunka u jeesato macnaheedu wax weeyaan aakhiraad ka tagtay ama aakhira haddaad u jeesato adduunkaad ka tagtay ma aha in leena aragtida saxa waa ta u arkaysa wada qurun inay jirto oo adduunkan waxa yaalo dhan in lagu itixaamay lana eegayo dariiqa aad marto aakhirana inaad adduunkaaga dhan u wada adeegsato sida daraadeed ba waxaynu leenahay aragtida tasawufka ama suufiyadu ay xooga saareen ee ah adduunyada in laga zaahido oo laga tago aan waxba laga qabani waa aragti qaldan waana aragtidii marka ay faaftay muslimka la gumaystay muslimku wuxuu gumaysiga galay markii dacfi tiro badan uu ku dhacay dacfigaana waxa ka mid ahaa in intii yareeyay diinta qabsashadeeda ku hadhayna sawmacaat iyo masaajid iyo meelaha inta la galiyay la yiri dunida oo dhan ilaaba هذا الدنيا اللي وده أديك مساجد كعبة ولا سكوكين جميسانية مساجد كان ينبت قال ما أديك مساجد كعبة ولا جميسانية سيدا وقد وحلينا إسلامكو درس كان وحها آخرية دونكو حدود كلها يوام حي وحلينا إسلامكو وحو يقارنا الدون آخركو قارسية الدون لغفري إن بدبرسطون لكن بدبرسطي ده ما أقول راح يستد سعد آخره وقول لي بانتي إلى القرآن كوحو كله يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إلهي وحليدتك واحد قتل هذا من حرم زينة الله وريادتك كم ممنوعي إلهي سبحانه وتعالى زينة دتك زينة وامحي وحيد هذا زينة وشيء زائد عن الضرورة الزينة هي الجمال جمالك وقروح يا قروح ذا الرياضي بالليل إن قروحانات دين تكمت إن قروحانات دين تكمت سيدا وجد با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكوت المام يا مركي نعم كوينسيي وقال الشيء ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون إلهي وحيدي حولها الله يدين أبورا حولها سيلا يدين أبورا با ليدي منفع تربضا باكو هايستان وحا عنطانية وحو البواكيها لسان وحا كلو يدي ولكم فيها جمال قرحنا ويدين با ليدي السبحي مركي يسيد دريريان ملا انتي ننوابا اسكيرتي ننحول الدريريو قروح دو داركي يدو الروب داي وردولكو برواقية هاي وميل ولبا ايفا جرين تهي واد حول السيد ديسي وانتي برقادة كور درقانا يسكا ودا فرفارستان وها مركي نولاش باو قروح بدانتي
يعني نولل كقروح بدن مركي زينتها إلهي بقرآن كشيء وحليه ولكم فيها جمال